asalaamu calaykum waa mar kale iyo muuqaal kale muuqaalkan waxaan rabaa inaan soo koobo kuulana wadaago xogtii ugu dambeysay xilligan la joogo ma jiro wax dagaal ah ama wax duqeyn ah oo socoto laakiin waxaa taagan warar kala duwan oo isu soo taraya Iiraan waxa ay duqeysay markabkii diyaaradaha qaadaya ee Mareykanka uu ku faani jiray weynaa alaweyne waaxid ee Abraham Lincoln waxaa la xaqiijiyay in 4 kintaal ay markabkaas ku dhaceen satellite-da caalamka sida China satellite-keeda waxa ay xaqiijiyeen in markabkaasi qayb kamid ah ay hulceysa ama qiic ka baxay Mareykanku ma doonayo inuu xogtan kula wadaago ama la wadaago caalamka jabkiisana banaanka la soo dhigo balse tan waa arrin xaqiiqa ah oo la xaqiijiyay waxa kaloo jirto in sidoo kale shalay la soo riday diyaarado uu leeyahay ama ay leeyihiin ciidamada Mareykanka saldhigga ku yaala Kuwait xilli ay ka soo kaceen ayay halkaasi ku soo dhaceen muuqaallo aysan jeclaysan ama uusan jeclaysan Donald Trump iyo Mareykanka iyo Yahuudba ayaa la baahinayaa shacab Kuwaitiyeen ah oo dul taagan askari kamid ah askartii waday diyaaradahaasi la soo riday oo baarshuud ku soo degay ayaa la xaqiijiyay in ay shacabku qabteen waxaa kaloo foolxumay ahaana ahaa askari Mareykan ah oo isna kamid ah diyaaradii soo dhacay mid kamid ah bayloodadiisa isagana in la arkay muuqaalo laga duubay isagoo qaybta dambe ee buudka gaariga la gelinayo tani waxay ku tusinaysaa awoodda Ilaahay balse wararku waxay sheegayaan in ciidamada militariga Kuwait ee ciidamada difaac cirka ay diyaaradahan soo rideen ilaa ay haddana lama oga sababta balse Mareykanku wuxuu leeyahay si kas ah ma ahayn baash waxay ahayd si lama filaan ah oo waxa la moodayay diyaaradahan inay leeyihiin Iiraan maadaama xuduud dhow ay leeyihiin Kuwait iyo Iiraan oo halkaas ay toos u soo gaari karaan diyaaradaha Iiraan ee wax duqeeya waxaa la sheegayaa 5 diyaaradood in dhulka la dhig laakiin ihaanada iyo sharaf dilka shacabka Kuwait ay ku sameeyeen qaarkood ayaa meelaha la baahinayaa iyadoona muuqaal mid lamid ah la baahinayo gabar dumar ah oo nin uu leeyahay waad ku maasantaa inaan caawimad ma u baahan tahay iyadana ay leedahay no ha ii soo dhawaan waliba warbaahinta Israa'iil ayaa baahinaysa muuqaaladaasi waxaan idiin soo saari doonaa qaybtan haddii Allah awoodda raali ka noqdo aad ka daawan doontaan Iiraan waxay u muuqataa in dagaalka wajigiisa koowaad ay ku adkaanayso laakiin Iiraan ku darsada hadalka Iiraan way tagtay sababtoo ah hadda waxay u muuqataa in Mareykanka uu xoqo doono kaar hadda ka hor loo xoqtay Ciraaq kaasi oo ahaa in la iska horkeeno sunniyiinta iyo shiicada iyadoona la rabo in lagu kiciyo wadamada Khaliijka Imaaraadka waan ognahay dagaalka Iiraan wuu galayaa laakiin wax badan kama doono oo murqaweyntii Yahuudda iyo Mareykanka meelay wax qaadi waayeen waxba kama jarayaan Iiraan waa ay dhiig baxaysaa waayo duqeyn culus ayaa lagu hayaa waxaana idiin xaqiijinayaa in jaajuusiin fara badan ay ku nool yihiin gudaha dalka Iiraan kuwaasi oo soo gudbinaya macluumaadka iyo goobaha gantaalada ay ka soo dhacayaan askarta Iiraan ayay ku jiraan waayo waxaa shaki weyn jira sargaal ciidamada awoodda badan ee Iiraan ugu sareeya in laga shakisan yahay inuu yahay ninka gudbiyay ama ka qaaday sawir Khomeini meydkiisa ama isagoo ku dhex jira burburkii guriga lagu duqeeyay loona gudbiyay Yahuudda taasi waxay gaarsiisan tahay halka ama sida ay aadka galaan ay ugu leeyihiin Yahuudda gudaha ciidamada Iiraan balse Iiraan hadda way dagaalamaysaa oo waxay taagan tahay aniga waan dhimanayaa laakiin waa la dhimanayaa dagaalkana waxay gaarsiisay bariga dhexe oo dhan dagaal caalami ah u bedeshay waxaana aad uga xumahay in Iiraan maanta ay weerarayaan Mareykanka Israa'iil iyo NATO wadamo kamid ah oo qaarkood isqarinayaan qaarkood banaanka keeneen oo ay qayb ka yihiin Ingiriiska uu ka yahay oo dagaalka ku jiro bal Iiraan waxa la gaarsiin doonaa jug culus oo waxa lagu duqeyn doonaa hubka ugu culus dunida ee bankarada ama dhulka hoostooda ka gudba laakiin Iiraan waxay go'aan ku gaartay wax alla waxay heeso inay fasaxdo maalintay faramaran soo istaagtana inay isdhiibaan oo yiraahdaan hadda dagaalkii waan ka baxnay Yahuudu calaacal ayaa ka soo yeeraya wasiir ka tirsan dowladda Netanyahu wuxuu leeyahay shacabkeenii dadkeenii duqowshaha ahaa iyo isbitaaladii iyo guryihii rayidka ayay Iiraan duqeynaysaa laakiin Israa'iil iyadu awood kale maba lahaba waxa ay leeysaa oo kaliya haweenka iyo caruurta oo iskuul ay dhiganayeen dumar 100 ah ayay dileen uma jeedaan kuwaas laakiin dhiigooda iyo shacabkooda la dhibaateynaya ayaa wax weyn u ah
Donald Trump waxaa lagu wadaa saacadaha soo socda inuu hadlo hore wuxuu ku sheegay inuu weerar kale ama ciidan cusub lagu dari doono isna la gaarsiin doono markaan balse waxay u muuqataa in dagaalka markaan la isku riiqmayo haddii uu gaaro isbuucna Mareykanka difaaciyadoodii bahaladii la dhahay Iron Dome ama bahaladii difaaca cirka in hadda hubkii gabaabsi ka yahay waayo halkii kantaal ay ridaan malaayiin dollar ayuu ugu fadhiyaa halka Iiraanna daroniska ay soo direyso ay ugu fadhiso lacag $100,000 ka yar ama $500,000 wax la mid ah taa waxay ku tusinaysaa in Mareykanka iyo Yahuuduba ay taagan yihiin meeshii ugu dambeysay khaliijkana waxay u arkaan in la cidleeyay oo Mareykan garabkoodii ka baxay difaaciyaddii ay Mareykan ka iibsadeen waxba ay ka celila yihiin Mareykankana uu kaliya difaacayo oo isugu geeyay awoodiisa sidii Israa'iil kan taalada soo hoobanaya oo sacabada uga dhigi lahaa waxay taasi ku tusinaysaa in maantay carabtu ay ogaadeen in difaacii ay qarashka badan ku bixiyeen ama lacagtii tirada badneed ay Mareykan siiyeen inay tahay hal bacaad lagu leysay oo maanta ma jirto cid ka difaacaysa Dubai iyo waliba Abu Dubai waa ay holciyaan waxayna u muuqdaan meel cidla inay taagan yihiin tanina waxay tustay cashir wax badan ayay ka barteen Sacuudiga waxaa rabaa dagaalka in lagu soo riixo oo waxa ay New York Post majalada afka dheer ay qortay in Sacuudiga uu raali ka ahaa oo ku cadaadinayay qaybna ka ah in Iiraan la weeraro Mareykanka taasina waxay hadda ku tusinaysaa Mareykanka inuu doonayo inuu dhiiqo lugaha u galiyo Sacuudi Carabiya waxay sheegaysaa ama ay taleefanka kula hadashay nin la yiraahdo Putin si halkan looga joojiyo duqeymaha ay Iiraaniyiintu ku beeqanayaan balse wararka qaar waxay sheegayaan in qaybo ka mid ah Sacuudiga duqeyntii loo geystay is Iiraan geysanay iskana bari yeeshay tani waxay ku tusinaysaa munaafiqnimada iyo sida la doonayo in la soo geliyo wadamada islaamka iyo waliba Iiraan balse kaarkaas ma socog doono oo ma xogmi doono waayo shacabka Iiraan waxay la jiraan dowladooda muslimiinta inta badanna waxay la jiraan dowladda Iiraan laakiin waxaa dhici doonta muddooyinkan dhow in la fadwoodo culimana ay hadlaan oo ay yiraahdaan sunniyiinta iyo shiicada waa inay iska dhiciyaan sunniyiinta shiicada oo loo fadwoodo wadamada islaamkana dagaalka qayb ka noqdaan oo ay galaan balse waxaa jira cadaadis kale oo ka imaanaya Xisbullah halkaas oo Lebanon iyaduna ay duqeyn iyo drone ku weerartay Israa'iil halka Israa'iilna ay ciidamada dhulka ay gelisay gudaha dalkaasi aagagii ay ciidamadii Xisbullah ay joogeen waxayna u muuqataa dagaalka markaan inuu bariga dhaxan ku fiday Hormuus waa xiran yahay gabi ahaanba oo waxaa la sheegayaa maraakiib isku dayday inay halkaas soo marto Iiraan u digtay la quusiyay Iiraan markaan waxay ciyaaraysaa kaarkeedii ugu dambeeyay maalin kastana waxay soo fasaxaysaa kandaal cusub ama sawaariikh cusub oo aan hore loo arag waxayna muujinaysaa midaan in Iiraan markaan awoodeedu looga cabso doono balse waxaa nasiib darro ah China iyo Ruushka inay garab maran dhigeen oo ay Iiraan wax kaalmo ah iyo garab istaaga u muujin lahayn marka laga soo tago in afka ay ka baqbaq leeyihiin wixii soo kordhaa dib ayaan kala socodsiin doonaa haddii Allah awood raali ka noqdo fadlan kamid noqo saaxiibadeena oo nagu soo biir si aad u hesho wararka ugu dambeeyay waa mahadsantiin